kooxda Manchester United ayaa wadadii guusha dib ugu soo laabatay da'yarkeedoo ismuujiyey rajadii UEFA Champions League dib ugu soo laabatay. Kooxda Manchester United ayaa ku soo laabatay wadada guusha kadib markay 3-1 ku garaaceen kooxda Brentford oo marti ugu haayeen caawa, iyadoo da'yarka Manchester United ay cadaadiskii ka yareeyeen tababarahooda. Goolasha ay kala dhaliyeen Elanga, Greenwood iyo Rashford ayaa Manchester United laba kulan kadib u xaqiijiyay inay saddexdooda dhibcood ee Premier League. Manchester United ayaa ku jirta kaalinta 7aad iyadoo leh 35 dhibcood, waxayna isku dhibco yihiin Arsenal oo 6aad ku jirta, halka 2 dhibcood ay kaliya ka dambeeyaan kooxda West Ham oo 4aad ku jirta, isla markaana kulan sii hormarsatay ciyaarta marka loo eego Manchester United. qaybtii hore ciyaarta Manchester United ayaa haysata kubadda inteeda badan, laakiin wax fursad oo badan kuma ay abuureen, halka Brentford ay heshay fursadihii ugu badnaayeen. Manchester United ayaa u mahadcelisay goolkiibaheeda dhexeeya oo ciyaarta ku sii hayay qaybtii hore ciyaarta inaan wax gool laga dhalin kooxda Manchester United. goolkiibaha reer Spain ayaana sameeyay 2 badbaadin oo waaweyn, kaasoo keentay in gool la'aan lagu kala nasto ciyaarta qaybtii hore. Manchester United ayaa si fiican ugu bilaamatay qaybtii hore labaad ciyaarta. Cristiano Ronaldo ayaa birta garaacay kubad madax ahayd. Man United ayaa ugu dambeyn hoggaanka qabatay ciyaarta daqiiqadii 55aad. Fred ayaana xerada ganaaxa ku quudiyay Elanga, kaasoo kubadda kor kiciyay ka hor inta uusan madaxa ku dhalin. 7 daqiiqo kadib Manchester United ayaa heshay goolkeedii labaad ee ciyaarta. Ronaldo ayaana kubad xabadka ugu dhigay Bruno, kaasoo isna si deeqsinimo leh u siiyay Greenwood oo shabaqa si xaraga leh ugu aasay isaguna. daqiiqadii 71aad ayaa tababaraha Manchester United bedel geesinimo leh sameeyay, isagoo ciyaarta ka bixiyay Cristiano Ronaldo oo aan ciyaarta ka muuqanayn, wuxuuna ku bedelay Greenwood. Ronaldo ma muuqanay mid ku faraxsan go'aanka lagu bedelay, waxaana kaamaradu ay qabanayeen isagoo ku murmaya kursiga kaydka ilaa iyo uu xitaa u tagay tababaraha. gool daqiiqadii 78aad waxaa ciyaarta hurdo u diray xidiga bedelka ku soo galay ee Rashford oo ka baxay abaartii gool la'aanta ahayd ee ku habsatay, wuxuuna kubad uu ka helay Bruno ka hor inta uusan dabamarin goolhayaha. gool daqiiqadii 85aad Brentford ayaa goolka samarsiinta dhalisay markii Manchester United daafacan weysay kubad dheer oo gacan ah oo la soo tuuray, waxaana kaasi keentay inuu kubadda shabaqa uu ku taabto Tony. Haddaba ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-1 oo ay Manchester United ku badisay, guushuna ku raacday. Haddaba wararkii maanta inta idinka haynay intaasaan kusoo gabagabeynaa, sidaas iyo nabadgelyo.